kusoo channelka haddii aad la socotid qaybo badan oo waxaan ka hadlay narcissism haddaba waayaan ugu dheganahay topigan yani why what is going on Safia why how do you find these people haddaba ogaada waxaan ka hadlo waa reality waa wax maaragtay educational ahaan ku saabsan qof walba oo dhageysanay education ahaan dhagaaga u fur kana baro horena uga sii soco insha Allah waxyaalo badan oo improvement healthigaaga relationship waxyaalo badan kala qaada bal haddaba lana soco channelka insha Allah si aad subscribe samaysid oo in badan aad la socotid because topican actually book ayaan ka qorayaa wuuna socdaa ilaa hadda soo xalaqada la soco xalaqadeedana hadda kow ah waxaan ka hadli doonaa what is malignant narcissist waa maxay malignant narcissist waxaa laga yaabaa inaa maqashaan anuu ka hadlayo narcissist grandiose mid kala yiraahdo oo banaanka usoo shacbaxsan oo qof walbaba u la arki karo iyo covert narcissist midka ah oo qarsoon oo maantana yuusaayo oo yani hoos dhib ka cadaabayo maaragta hadaa xanaaqdid aan kuu arkin hadaa oysid aan kuu arkin laakiin maanta maxaan ka hadlaynaa dhinaca ugu daran oo aan dhihi karo is not only individual ahaan qof ahaan inoo dhibaataysay nation ahaan dhibaatadeeda ina wada haysato oo yani dadka especially oo yani jagada weyn haysta dadka isu arkay inay meel weyn ka muuqdaan dhibaatadaas malignant dadka ah waaye iyo waxay sameeyaan daba ila soco adaba waa maxay malignant narcissist maxaana lagu ogaadaa muxuuna yahay maxay tahay Safia soo hadda waa ku bilaabi doona qaybta amaanta u kala qaybi aan ka hadli doono waxa kamid ah qodobo waxa idin siin doona ku saabsan waa maxay malignant narcissist astaamaha lagu ogaado qaybta labaad waxaan ka hadli doonaa dumarka dhankooda in ay astaamaha lagu ogaado dumarka marka ay yihiin malignant narcissist okay this is really interesting and kadib waxaan ka hadli doonaa sidee naftaada isaga difaacdaa really yes you can waad ka difaaci kartaa all waxaad u baahan inaad baratid oo hore usii socotid soo haddaba annagu sii gudagelayna insha Allah number 1 dadka narcissist ama isla qob weyn oo magacoodu uu yahay malignant narcissist loo yaqaano af Soomaali ahaan waa ku raadiyaan waay laakiin waa dadka sii sareeya xaq jira dhibaatada ay dadka ku hayaan ama qofka ibn aadanka ay ku hayaan ama dadka la nool ay ku hayaan ama group ay ku hayaan ama shaqo ay ku hayaan ama nation ay ku hayaan ama politician ay ku hayaan it doesn't matter malignant narcissist waxa lagu qiyaasaa wuxuu u dhow yahay psychopath ama sociopath dadka yani dadka dila ay u dhow yihiin prescription wax yar uga dhiman wax yar hadii si dhaqaaqan waa dila dadka hadii ku arkaan yani xoog ka batay iyo nacaybka iyo maaragtay gudahooda aggressive ka yihiin waxay ku sugayeen wax yar inay noqdaan dadka dila inay noqdaan marka this is a type waxa waa type ugu weyn aan idin dib dhigay waayo waxaan ka hadlay covert narcissist kuwa qarsoon oo aan self esteem kooda low yahay laakiin aysan lahayn wax la yiraahdo qiiro aysan lahayn empathy dhan ma lahan soo haddaba tan way ka wada siman yihiin qofka malignant narcissist waa uu ka siman yahay qaybaha aan hore usoo sheegay qofka grandiose ka ah oo yani shaqtiga taagto xijaabka taagto asaga kaliya isu ark adduunka inuu ugu sareeyo dadka dhan aan arkin yani indhe waa le Ilaahay subhanahu wa ta'ala u sameeyay laakiin waxay dhaaka daboolna kula socdaa so malignant narcissist waa maxay seesi yihiin number 1 waxa lagu ogaadaa qofka malignant narcissist truly unique in isu arkaan in ayaga kaliya isla truly isla yihiin unique qof special ah oo waxba laga qaldi karin waxba laga dhimi karin waxba la yeeli karin waxba la dhihi karin inay soo arkaan oo definitely high isla ah so truly unique isu arkaan inay yihiin dad cajiib ah oo special ah ay isu arkaan and because why isu arkaan they think waxay isku haystaan remember inay kaliya isu arkaan maaha waxay isu haystaan inay yihiin special oo dadka dhan ay ka special san yihiin oo unique ay yani waxa la yaqaan caanamadaadiso yani aniga inaan la igu soo dhicin dadka ma ku dhaco yani haddii igu soo dhacaan waa la ogyahay waxaawadan kala qaybsanayna truly unique ay isu arkaan fikradaha dadka kala maqataan fikrad qof kale hadal uu ku dhaho ama haddii xataa uu qaldeen qofkaas loo sheego never fikradooda kaliya ayaa unique la waxay isu haystaan qofka territorygooda soo gala u soo dhawaada inaysan liibaanaynin aysan ka harin actually qodobka saddexaad oo lagu garto waxay dadka u arkaan object what do I mean dadka waxay u arkaan object ibn aadan aan nahay Safia ibn aadan ta qofkan la hadlays ibn aadan waa laakiin iyaga dadka dhan waxay u haystaan inaysan human ahayn ibn aadan ahayn why waxa kamid ah relationship ay isla lahaateen waxa way dadka yani way ayaga way duldulan guurso fur yani xagga guurka xagga kale waxay u sii dhaqaaqaan business-ka qofkan ku darso
markaa aragtid qofkan inuusan adiga uu kuu fahansaneyn ama uu kugu raacsaneyn inaa special tahay unique aad tahay waa kaasii tallaabsana haddana qof ma kala jecla yani micno weyn lama laha friends micno weyn lama laha relationship ayaga waa inay they just bouncing way boodboodayaan yep kubadda ma aragti markii la tuuro inay qofka kale intaysan gaarin 3 mar boodbooda saasoo kale noloshooda in boodboodka ku jira why because ma ku arkaan ibni aadan object maalinta adigana soo gashid qofkaas noloshiisa waxaa ku soo gashay adigoo jacayl waxaa ku soo gashay waxaa laga yaabaa inaad qofkaas shaqadaas ku dirsateen aan leedahay businesska waa isla wadi karnaa friendship waa isla noqon karnaa oo gacanta is leedahay yes gacanta is qabsano hore u soconno then markaa dhaqaaqdii ay ku arkaan laakiin one day aad qiyaamo ku aragtid ay qalad sameynaa tiraahday why did you do that way ku fiirinayaan because fikradoodii ayaad cross garaysay fikradoodii ayaad kasoo horjeysatay banaankii kuu tuureen so object ayay ku arkaan qodobka afaraad waxay leeyihiin waxa la yiraahdo naxariis daradooda very very low aad u yar why empathy waxa waay iyo naxariis darada xataa ma ahan inay ku fahmaan qaladkii ay kugu sameyn in dhibaato kugu gaarsiin karto very low empathy why naxariisnimadooda very low why waa markaa dhahayo waxay u dhow yihiin dadka dila ay u dhow yihiin oo yani inay gacan kuu qaadaanba way ku sugan tahay because gudahoodiiba waxba kama dareemayaan so dadkaas low empathy leeyihiin waayo waxay iskuma arkaan waatan soo sheegay ina ibn aadan tahay ibn aadanimo kuma arkaan waxay yani ku arkaan haddaad qaladka gashay banaanka ku tuurayaan qofkii shalay kor u qaaday xambaaray dusha saartay adaaba sheegtayba number 5 waa dad very mean very 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 mean dad yani way ku xumeyn karaan way ku xanuujin karaan hadalkii ku hadlaya waa meanful waa wax loo dhahay psychopath sociopath dadka maaragtay oo murders ka sameeyo yani aan level ka leeyin psychology xataa laakiin qofka malignant narcissist kuwaas uu u dhow yahay one level yar uga dhiman inuu dilaa noqdo oo dadka dilo so most of the time xataa inay ay kiciyaan dadka isku diraan 2 qof isku diraan 3 qof isku diraan waxay rabaa ciyaartaas dagaalkaas in cirka isku shararto oo cirka ay gaarto dabkii uu cirkaas faafiyo inuu nation dhan adduun dhan qabsado waa dadka ka fikiro waay so dadkaas oo kale waa very mean and waxay kul attitude-kooda because waxay aaminsan yihiin nobody like mess up with me hadaa wax yar aad iska hor imaatiin oo kale dadka ibnaadinku iska hor imaadaan waxay taagan yihiin bad sideeba ani la ii taaban karaa sideeba aniga territory-gayga loo soo gudbi karaa who are you what dagaalka ay kiciyaan madamo so taas waxa lagu ogaadaa dadka malignant narcissist inshallah video waa soo gaabin doona because in badan ayaan ka hadli doona ma jecel video inuu dheeraado laakiin waxa ku jiro content tiro badan oo ku siin doona educational oo aad dadkaas ku baratid oo aad si naftaada uga badbaadisid number 6 waxay aad u leeyihiin they paranoid very very paranoid why dad wax walba wax u malay aniga leela danla aniga lagu sima waa lagu soo socdaa cirka dhan waa dumi raba dagaal adduunka ay ku jiraan why because even waxay u malayn dadkoo dhan inay jealous ka yihiin dadkoo dhan inay ka masirsan yihiin dadkoo dhan inay maadaama ay soo arkaan inay special yihiin unique yihiin oo ayaga dhanba gifted ay yihiin dadkoo dhan waxay arkaan anigu hebel iga masirsan way soo fiirisay heblow iga masirsan tahay ayagana waxay ku jiraan inay kor su qaadaan subhanallah a'udhu billah so that is really bad that's number 6 number 7 pointoodu way badan tahay they don't hadal kuma hadlaan oo qof macquula oo ku hadlo oo lagu yimaado beenta intay ka saaran tahay inay wax walba ay waxay jecel yihiin been ku difraan beenta markay sheegayaan you will be mesmerized adigna wax noqso run waayo qofkan ku hadlayo adigna waa la dhacaysaa qof walba adiga kaliya ma ahan qof kaliya business dan ayaa qofkii lacag ku shiwana kumaan kun because qofkan kaliya carabkiisa sweet beenta uu sheegay adduunka si uu kala dhiso wallahi habeenkaas oo isku kala dhacay maalintaas wuxuu ku seexanaa intaas oo 100 qof lacagtooda jafsaday so taas waxa la yiraahdaa iska ilaali maadaama ay beentooda badan tahay waxa kale lagu gartaa dadka malignant narcissist oo qaybta maaragtay dadka isla qobweyn in xanaaqooda uu tira badan yahay maba la taaban karo sanka qof taaban kara male qof u soo dhawaan kara male yani maadaama angerkooda uu zaid u yahay that's why aggressive noqdaan and nobody mess up with me taagan yihiin subhanallah ilaaha naga qabto before aanan dhanka helpiga u galin oo qaybtaas uga bixi kartid haddaba aan ka hadalno dumarka what are you talking about Safia adiga dumar tahay see wax ka yihiin
maxaa anaga nooga hadlaysaa that doesn't mean waxaa fiican the truth in laga hadlo xanuunkan oo waxaan saa u ogtiin narcissism waa xanuun oo dadka ku jira dumar iyo rag labadaba raggana ma aha keliya dumarka keliyana ma ahan again waxaan kusoo celinayaa laakiin malignant narcissist oo aan kasoo doortay it fascinated me markaan research ka sameynaya qaybtaas waxaan arkay dhanka dumarka I was like what markaan akhriyay waxyaalo badan ay soo baxday taas waan kula sheeg garanaa insha Allah soo diyaar garow dhanka dumarka marka qaybta aad ku ogaan kartid insha Allah waxaa ku siin doonaa ilaa dhowr qodob aad ku fahantid dumarka marka ay yihiin malignant narcissist sida la iskaga ilaaliyo number 1 qaabka aad ku ogaan kartid waxa ay sameeyaan astaamaha ay sameeyaan waxaa ka mid ah wax la yiraahdo in ay adiga haddaad sanka xoqatid ayagana xoqdaan si ay kugu soo milmaan si ay close kugu noqdaan oo adiguna aad ku aamintid oo wax walba ugu kala furtid noloshaada waxaa noqon karta yani dumar markaa dhahayo waxaas yani qof ah noqon karta waxaa noqon kara friendship dad asxaab aad tihiin oo isku asxaab tihiin oo dumar ah usaa kugu samayn kara dad dumar waxaa jira marka malignant narcissist markay yihiin subxaanallah adduunka dhan isku roga si fiican u dhageysta this is we need to be educated oo in badan inaan ka fahno insha Allah ana una arka education ahaan number 1 waxay yani isku dayaan inay iska dhigaan wax adiga aad jecesha si ay kugu soo galaan noloshaada waxaa la dhahaa love bombing like jacayl yani inay markay ku arkaan adiga inaad tahay qof degan qof caqli badan qof listen qof waxaaba tahay kind naxariis badan ayagana markay agtaada joogan waxay ku leeyahay wallahi hada aniga xataa saas ahay you know me and you are the same naxariista iskugu mid nahay kugu soo galayaan then hadhoodii waxay la soo kala baxayaan jaakada la yiraahdo manipulation inay adiga dhan xagga ku rogaan hadalkay gees u rogaan waxa aad tiraadid si qalad u fasiraan cirka kula aadaan so manipulation kaas kugu bilaabayaan number 2 waa maaragta dumarka malignant narcissist waxaa kamid ah inay dabeecadda ay leeyihiin wax la yiraahdo expert lies maaragta they wig yani waxay ku qaateen bilada beenta ayay waxay ku qaateen bilada beenta soo qaateen actually jaamacada waxaa jiro lagu qalin jibiyay soo ma ahan qofka education accountant qof noqda engineering qof psychology qof medicine laakiin ayaga dumarkaas oo malignant narcissist waxay ku qalin jibiyeen jaamacada beentaas oo kala ah waxaa laga yaabaa inay caafimaadkooda been ka sheegaan waxaa dhici karta ilmaha haystaa inay been ka sheegaan dhahaan waraa heblo isoo orda ilmahayga waa jiran yahay xanuunkaasaa laga hel qaarkood xitaa research marka la sameeyay cancer xataa ilmooda ay ku sheegaan subxaanallah ilaah naga ilaaliyo si ay ayagu ku farxaan hore dadkoo dhan ugu soo gurmado so they very expert lies why beentooda way badan tahay waxay kaloo ay sameeyaan ay advantage ku qaataan waayo markay beenta sheegayaan waxay rabaan inay dadka kale sympathygooda advantage ka qaataan soo dhawaashaha iyo naxariista la tusinayo number 3 waxay yihiin dad hal waji aan lahayn laba wajiile ah dumarka kuwa maaragtay malignant narcissist laba wajiile sababtoo ah aniga adiga hadda waxaa laga yaabaa somehow inaad maaragtay qof la kulantid ama ana qof la kulmo qofkaas yani waxaan filanayaa wajiga aan kula kulmay inuu ila ahaado aniguna wuxuu iga filanayaa wajiga aan kula kulmay inuu ahaado laakiin qofka dumarka ah oo malignant narcissist xanuunkaas qaba hal waji kulama imaan karaan laba wajiile waayo alwaysna waxay baahi weyn u qabaan in ay adiga targetkoodii baahi weyn u qabaan sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay kugu barteen in ay kugu meel gaaraan waxaa laga yaabaa inay kugu barteen dariiq inay kugu maraan oo qofka adiga taqaanida u socdaan adiga kumaba socdaanbu laakiin qofka adiga taqaanid ayagu isma yaqaanaan oo uma tagi karaan for example laakiin adigay ku baranayaan hebelow ka waran isbartaan kadib waxay hebel maalinta dam saaxiibo kula noqon waxa jeclaanayaan kabaa xiranayaan meesha aadida kula jeclaan hadhow si adiga qofka kale u gashin adigana wadada lagu maray qashinka lagu daray because targetka adiga ma ahan waa laga sii gudbay so again ma dareemaan wax la yiraahdo loyalty dhan ma lahan loyalty waxaan ka wadaa dad yani at least oo degan oo leh adaab oo dhaqan wanaagsan leh maaragta again oo yani degan actually ma ahan but waxay noqon karaan dumarkaas oo malignant narcissist bullying ta kala bullying waxaa jiro cyber bullying jiro bullying waxaa jiro not inay bullying kugu sameeyaan oo intii banaanka ku soo waa ku dilaa ila dagaal ma jirto ila dagaal waxaa jirto oo through social media ila dagaal waxaa jirto
through maaragtay inay qof kale tagaan isku kaa diraan oo qof kale haddana sii tago dabka dhan sii shido dabka hore idin sheegaa cirka isku shareera oo hadhowdii dabkaas meel laga damey la aqoon yaa kiciyey laakiin qof malignant narcissist ayaa kiciyey oo kicisay actually because waxaan ka hadlaynaa female one insha allah waa idin soo diyaarin doonaa midka male ahna don't worry maaragtay idinkana hadduu ilaah idmo number 5 waxa kaliya ugu daran yihiin subxaanallah I hate to say that waxay jecel yihiin in ay daawadaan dadka inay dhib ku dhaco they like to watch maaragtay dadka or other people crash their life inay noloshooda upside down noqoto inay dhibaato yani cirka soo dhac dhibaato kusoo wajahdo inay yani qof kale noloshiisa oo kale guurkiisa ka halaabay way ku farxaan qof kaloo yani xanuun ku dhacay ama maaragtay nolosha businesska kadib uga dhacay ayaga they love it waxay clear ay calooshooda kor uga qaadmato hebel hadday maqlaan dhibaa ku dhacday yes ilayna acuudu billahi min shaytaani rajiim yes saa dhahay xataa ani caloosha ay xanuunta hadda waayo qof ibni aadana walaalka ah waa xubin adi jirkaaga ka mid ah xubintaasna marka adiga qofkaas ay xanuunta waa adiguna inay ku xanuuntaa number 6 waa very competitive waa dad jecel in ay iyagu un raayaan in laga raayo ma jeclo in laga hadal dambeeya ma jeclo in banoonta looga dambeeya ma jeclo in hadalka looga dambeeya ma jeclo in yani wax walbo laisku qabsado ayagaa saxsan I am right ay ku jiraan waana dumarka malignant narcissist waxay kaloo because ayaga dhanba waxa u cad inay maaragtay reeyaan reysmada unbaa wax weyn la ah oo xoog ay saaraan haddaba dadkaas haddaa aragtay waddo kula kulantay safar la aaday la joogtay la noolaatay walaal kula noqotay ka dhalatay la dhex joogtay haddaba dhagahaaga fur dadkaas inaad naftaada waxaan ku siin doonaa waxyaala aad naftaada kaga caawin kartid oo naftaada ku badbaadisid number 1 waxaa ka mid ah waa inaad develop self awareness inaad yeelatid oo dhahdid yani you need inaad baratid qofka wax kugu darsanay you have to know who they are in terms of knowing qof yani hal mar ma dhihi kartid oo I need to know research and sameyna you know bookta waad geli kartaa oo aad baran kartaa education like qof ibni aadan noloshaada kusoo biiray book aa wax ka raadinaysid ma laakiin maxaad samayn kartaa lightka leerka ayaad shidaysaa oo garashada waayo dadka malignant narcissist ah waxaa ka dansan conscious ma lahan wax walbo ay sameynaa ayagoo indhaha isku xirna ku ordaan adiga ina indha lahaatid waa oo dhahdid what is it qofkan dabeecadiisa muxuu ahaa shalay saanu igu sameeyey maanta what is it ama yesterday saana iila hadlaysay bal aan kaadiya bal inay ka ahayd caro uno hal mar soo dhaaftay haddana repeat markay noqoto because waxaad on ka dhigtay your self awareness ogaashaha ama foojignaanta waxaa kaloo sameysaa markaa taa sameynaysid good ha ku dheeraanin iska ilaali inay kaa fahmaan waayo hadday kaa fahmaan they can destroy you that's scary subxaanallah waayo dabkay shidaan ma damo dadka malignant narcissist adduunku cabaar u soconaya yani ilaa la jah wareero oo qof walba xataa nationka dhan ay gaartabo yani adduunka dhan waxaa laga yaabaa waddankaas la joogo dhan ina dabka ay shidaan qofkaas uusan damin marka iska ilaali they can destroy waxay isku dayi karaan meel kasto ay kaala soo wajahaan laakiin markaad samaynaysid self awareness tartiib ha ogeysiin tartiib ugu number 2 don't argue with them never hala murmin more aa la murantid the more ay adiga kaa raayaan way kaaga raayaan because adiga missionkaaga ma inaad la murantid waxaad hadalka ugu celinaysaa waxay ay dhaheen ayaa qaldanaa waxaad ka timi meel saxsan yani akhlaaq ayaa kugu jirta marka ayaga markaa la muranta wax sax is leedahay murankooda the higher level ayay kula aadayn oo adiga hadhowda dhibaato kusoo gaarsiiya mana bedelo dhibkaa number 3 isku dayin hana ku riyoon inay isbedelaan waayo ilaahay qalbiga qofka ibn aadamka uu bedelaa laakiin dadkaas aan ka hadlayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu bedelo bas laakiin inta kale waxaa dadkaas oo badan because qaybta maskaxdooda ayaa naxariis dhan lahayn waxaa ku jira inaad dad tahay inaad dad ahayn kuma oga object ayay ku arkaan way ku dul marayaan noloshoodu dhanbo yani caleenta kale sida canjeerada marka la dubaayo 5 xabo 6 xabo maanta layerka koowaad layerka way sii socdaan yani hadday ka arkaan wax aysan jeclaysan oo adiga inaadan crossline ku samaysay meel kale ka admo macaanidii xataa kuma arkaan ee qofka ahayd shalay way ilaaban laakiin inta kuma rajis gareysnato conscious umay aha iyana umay aha sax labadaba waayo dumarka iyo ragga tanad waxaan ka hadlaynay dhanka dumarka waxaad kaloo iska ilaalisaa labadaba tibkan idin siiya dhanka kale oo general ahaan wad u isticmaali kartaa qofka dumarka malignant narcissist haddaad wax ku darsatana qodobadan insha allah iyaduna la isticmaal ha ku riyoon anigoo qodobkayga aan aad ugu soo celcelinay inay isbedelaan waayo isbedelid ha ka sugin qodobkayga afaraad aan kusoo gabagabayn doono
raaso dad caafimaad leh dadka caafimaad ma lahan they're not healthy and they know maaragtay ma rabaan inay qirtaan inaysan caafimaad lahayn so yaa ku dhimanay ku daalay waa adiga so look after yourself and seek professional. Assalamu alaikum.